السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa inoo soo socday barnaamij la magac baxay badbaadada qoyska waxaan marinay mowduucii ku saabsanaa noocyada doqonta doqonta waxaan soo sheegnay inay tahay 10 nooc oo u dhalay odaygii doqonha 10ka nooc marka saddexna isku baabi ahaayeen saddexna isku baa halka midna uu ahaa bahgaar sida la jeedo marka insha Allah biidnaa tabaaraka wa taala saddexda ugu horeysay ee daaleedahayd ayaan rabaa inaan mid ka taabto biidnaa tabaaraka wa taala si sagaalka kalena aan ugu sii socno hadii rabbi raali ka noqdo noocyada ugu horeeyay ee daaleedaha waxa uu ahaa ninka la yiraahdo dufle ariga dufle macna ahaantiisa qof walba uu iska sawiran karaa macnaheeduna waxa weeyaan dufle waxa la yiraahdaa qofka ma garanaysaa inta badan nadaafadiisa aad ku liidato sida inuu labiskiisa aad u liito sida ma garanaysaa inuusan qabaysan badana inuusan ilkiisa afkiisa u sanacadayn inuusan maaragtay waxyaabaha carfaya uusan ku dadaalin hadii jeer maaragtay qof adigu maaragtay kala dhiman inuu yahay kabaha uusan casaysan dharkiisa uu sufeereysnayn maamaha Soomaaliya ayaa waxa ahayd aradna waa dan ustigna waa daciifnimo ama waa doqonnimo hadba sidii maaragtay ugu garanayso waxa dhici karto adigoo awoodo heli kara maalin kasta inaad maaragtay dhar nadaafad leh labiskaagu hadii jeer marto nooca doonta aad ka dhigi karto in maaranaysaa adigu daciifnimo ku jirto iyo doqonnimo iyo maaranaysaa nadaafad xumo iyo wahsi iyo wax la mid ah in maaragtay arrinkaas u sameyn karin run ahaantii waxa weeyaan dadku ma ay jeclo bulshada qofka aad iyo aad nadaafadiisa ay u leedato waxa dhici karto inaad qof ad saaxiibtaan oo maaragtay dabeecadahan iyo danahan maaragtay ay wax walba iskeen galaan kasoo qaad qofka asaga markaad meeting la sameeyso waxa dhici karto in jirahan aad u soo urto neefta afkaaga ay urto ama ma garanaysaa labiskaaga qabaantaada inta ma garanaysaa uusan qofka aan soo jeedan waxa dhici karta inaad bulsho baabuur la raacdo waa dareemi kartaa markii mararka baabuurada aad raacdaan ama rakaaba ahaadeen ama BL iyo wax noocaas ahaadeen ودريمي كرتا قفك وحيو إن بدن قفك ساينة كل عضي إنه قفك آدي آدو شركي سو دب صنايع سيدو كله مركي اسكولada joogtaan fasalka waa arkisaan ciyaalka kula fasalka kan kursiga kula soo fariisto waxa dhici karto inaad dhibsato maalinka sanadka ilaaliso qofka asaga inuu maarta ku soo fariisto adigoo ku duulay waxa cunugaas qofkaas ama maarta ka soo shiiraayo sidaas la mid ah waxa weeyaan ama goobta shaqo oo maaragtay ka shaqeyso ayna sida ayada inay kugu qabsato marka ma ahan wax wanaagsan nabiga kaleey salaatu salaam hadiis saxiix oo ku yiri nadaafatu nisful iimaan waxaan la sheegay in nadaafadu inay tahay iimaanka barkii hadii aad nadaafad tahay waxay ka dhigan tahay iimaanka qayb ayaa maqan kaamil ma bahanba sida dhaajkeed marka duufle magaca inaad qaadan ayaan ka rajeynayaa بإذن الله تبارك وتعالى وحاتك دمينا كل ذلك دون تودي هذا أحد من تمامها لي أما قبرت هذا موضوع تمامها لهدي أتاي إن أتكدد هنا كدد شو إن آذن قادن مقعة تقنت دوفلي سيدو كلا واحد كرتو بري كمالين أولادنا إلهي قصية أما بعد لا هاي عيالك أيها كم تربين كرتي نظافة يوم قرني ساي سيدي أقول بس لهاين يسي اسكو ناش لهاين أما نفتوض أي وقت يقول لهاين sababtuna waxay tahay hadii aad adigu amarto oo ficiliyan aad arrinkaad sameeyso waxa weeyaan maba ka aqbalayaan ama waxa laga yaabaa inaysan kugu soo dhicin laana adiga ayaa isdaryeeli waayay sidoo kale ooridaada xalaasho Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku siiyay ma ahan inay dhibsato nolosha ay kula qaadatay oo ah in maaragtay waqtiga aad maaragtay labadiina aad wada joogtaan oo gurigeena xalaasha aad joogtaan in ma garanaysaa gabadha ay maaragtay ku karaasato oo adiga jir ahaan iyo neef ahaan iyo dhanka soo tahay inay dhibsato wax wanaagsan ma ahan waxa rajeynayaa bidillah tabaaraka wa taala hadii aad ku sugnayd calaamadaha ayaga inaad ka digtoonaan doonto waxa ka dambeeya hadii aad muuqaalkan daawato bulshada dhexdeeda markaysan ku bixin magacyada soo socdo sida uraaye maqabayste aradle waxyaabo noocaas oo kala ka digtoono oo ka dadaal naftaadana waqti gali وبالله يا هل تقول أنا إسلسو دقيسني أمان إسلسو أرجعني تلمامه هذه مجا عذابه ما أنت أنا وحرجيني إن شاء الله لمبرك لبدينا أقدمنه دقنتي لما قاعد بحضي دابله أرجع الداب صومالي ذو حويان إن بدن ويكلا له جدد وأنت هاي قيب وحي ويقانن بر قيب وحي ويقانن تريق قيب وحي ويقانن داب كأن شغني قف كسائنا له جدي سأن كفهم سين أيان اسكت دينا أرجع الداب
run ahaantii magacan daable doqonta la yiraahdo waa doqonta ugu khatarta badan ama ugu saameynta badan bulshada dhexdeeda, gaar ahaan kuwa ay wax la leedahay sida xaaska iyo caruurta iyo dariska iyo qof kasta ee ma garanaysaa ay ugu dhow inta kale bulshada. doqontaas ayada waxay wax ku cabirtaa mar kasta in ay gacanteeda ku aarsato ama ay ku ciilbaxdo, waana halka Soomaalidu ay ku tiraahdo doqon meel lagu kaftamay waxay u moodaa in lagu kala tagay, in la isku dilay ama lagu kala tagay ay u qabtaa meesha lagu kaftamo. waxa weeyaan kaftan ma ilaaliso akhlaaq kale ma ilaaliso, ma garanaysaa wanaag kale ma ilaaliso, darisnimo ma ilaaliso, ixtiraam kale wax ay ilaaliso ma lahan. doqonta ayada waxa weeyaan waa doqonta ugu dhibaatada badan bulshada dhexdeeda. wax kastaana waxay ku cabirtaa gacanta inay kaga hadasho, wixii af lagu xallin karay gacan ayay kaga hadashaa. doqonta tilmaamaha leh haddii aad ka mid tahay biidnillaahi tabaaraka wa tacaala, waxaan rajeynayaa inaad ka soo waantowdo. aniga ahaan xoogsadoo la hadlaayo ee fariintan idiin soo gudbinayo xaqiiq billaahi alcadiim waxaan ka mid ahaa doqonta la yiraahdo daable, oo waxaan maaragtay tiigsan jiray ama aan had iyo jeer aan maaragtay door bidi jiray inaan maaragtay wax kasta aan gacanta kaga xalliyo. laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa weynaadaa wanaagsan. markii aan garaadsaday ama u maaragtay maskaxdaydu ay qaybsantay ee xumaan iyo san aan kala gartay oo da'deedii ay soo kortay ee aan soo gaaray xilliga qaangaarka la yiraahdo, waxaan isku dayay in badan inaan ka gaashaanto dhibaatooyinka aan maaragtay soo geysan jiray ama aan gacanta ka geysan jiray. waxaan rajeynayaa in badan oo ka mid ah bulshadii aan isla noolaan jirnay inay daawan doonto. waxaana ka codsanayaa intii ay wax iga gaareen inay iska kii cafiyaan, anigana intii wax i gaarsiisay cafis ay iga yihiin. marka waxaan rajeynayaa qof kasta ayaa maaragtay ku sugan xaaladan hadda aan ka hadlayno inuu noqon doono mid ka waantoobo oo aan dib dambe ugu laabanin. doqontan dadka ay dhibaatooyinka gaarsiiso waxaa ka mid ah sida badan xaasaskooga. in badan waxaan aragnaa nimanka qaarkood inay maaragtay haweenkooda ee aad iyo aad maaragtay oo la dagaalamaan ama ay u dhibaateen ama ay u dilaan. gabar ilaahay subxaanahu wa tacaala adigu uu kuu baneeyey ee wax kasta oo dhibaata oo maaragtay aad ku hilmaamaysay oo ilaahay awlaad kaa siin lahaa amaba kaa siiyey oo ilmahaaga hooyadood ah ee kaaga soo go'day ehelkoodii iyo maaragtay qaraabadeedii iyo hooyadeedii aabaheed adiga kaaga soo go'day, inaad ku abaalmariso ama aad la tiigsato inaad maaragtay gacan intaad oola tagto aad dhibaatayso. xaqiiq billaahi alcadiim caqli xumo ka weyn inaysan jirin ayaan dareemayaa. waayo dumarku aad iyo aad ayay u jilicsan yihiin, naxariistana 100% ayay ka wataan. keliya wixii aad adigu gacan kaga geysan lahayd inaad afkaaga aad maaragtay kaga noolaato ayaa kaaga khayr badan, ajir iyo xasanaadna aad kaga helaysaa. laakiin haddii aad disho dembina baad ku sugan tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala beritool ayuu kaala xisaabtami doonaa. adiguna weji iyo wanaag meeshii kuma yaalaan ee waxaa tahay qof bulshada dhexdeeda ku qaatay magaca daable ee doqonnimada maaragtay booskeeda la geliyey. marka insha allah biidnillahi tabaaraka wa tacaala haddii aad ahaan jirtay doqonta noocyadaas ah ee dhibaataysa xaaskeeda, caruurteeda, ehelkeeda, waalidkeeda, walaalaheed, haddii aad tahay waxaan rajeynayaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala inaad kasoo rujuuci doonto, dibna kaga soo laaban doonto. qofka bani aadamkaana waxa weeyaan asaga unbaa isbedeli kara, cid bedeli kartaa ma jirto. waa halka Soomaalidu ay ka tiraahdo waana abuuris baa ka horreysay. qof kastoo marka isxisaabi, adiga dib isku eeg calaamadahan haddii qayb ka mid aad leedahay sidaas kaga tiri lahayd ama bulshada dhexdeeda aad maaragtay magac kaga wanaagsan kii hore aad kaga qaadan lahayd, dadaalkeeda adiga ayaa laga rabaa. qofka sidiisaba waxa weeyaan ninka ragga ah aan dhehe ninka ragga ah sidiisaba haddii uu muslim yahay waxaa loo baahan yahay in uu ku daydo nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo qaatay anshax wanaag, dabeecad wanaag, deganaan, akhlaaq wanaag iyo wax kasta oo wanaagsan ee bulshada dhexdeeda ku wanaagsan. adiguna ku dayo, isku day inaad maaragtay ahaatay mid bulshada dhexdeeda aan ku lahayn magaca doqonnimada ee ku leh sharaf iyo wanaag. qofkii aad isbarataan si uu kaaga sheekeeyo wanaagaaga iyo sharaftaada, ayaysan dhicin qofkii aad isbarataan ama ay wax idin dhex maraan inuu kaa sheekeeyo xumaantaadana mar walba u maaragtay soo qaadooda. waxaan ku guda jirnay saddexdii ugu horreysay ee da'leedahayd. maanta ninka aan ku guda jirno inaan faraqayno waa ninka la yiraahdo dareen leh. ereyga dareen waxa weeyaan qof kasta wuu iska dareemi karaa macnihiisa iyo waxa uu ku fadhiyo. marka doqonta ayada markaan sifayno noocyada ay leedahay lagu garan karo waxaa ka mid ah in had iyo jeer dareen uu ku abuuran yahay oo shaki baas uu ku abuuran yahay. 24 saac ay ku qufulan tahay in ma garanaysaa asaga uu la haysto la xamanayo. labadii qof ee meel wada jooga ee wada sheekaysanaya
waxa uu arkaa in asaga ay ka sheekeynayaan. labadii qof ee saaxiibta ee maaragtay uu kor ka garanaya ama dariskiiga wuxuu u qabaa inay asaga ku yihiin cadow ee asaga ay u heshiiyeen. sidoo kale waxa weeyaan wuxuu 24 saac iska dhaadhiciyaa labadii qof ee wada qoslaysaba in asaga ay ku maqan yihiin ay wax ka sheegayaan, sidaa darteedna ay ku qoslayaan. wuxuuna had iyo jeer isku arkaa asaga in inta kale ay yihiin cadaawadiisa, ee qofka keliya la beegsanaya ee cadow lagu yahay inuu asaga yahay. sidaas lamid ah ehelkiisa, markaan ehelkiisa aan ku leeyahay waxaan kala jeedaa xaaskiisa. 24 saac wuxuu ka sheegaa waxaysan u qalmin ama aysan ahaynba. wuxuu yiraahdaa islaantaydu waa tan, waa wasaqad, waa la waxeeyaa, dad bay la socotaa, nin bay jeclaatay, nin bay raaci rabtaa, nin bay saan 24 saac sida ayada buu maarta ku dhagan yahay. waa doqonta la yiraahdo dareen leh. inkastoo hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa ay nafariso in ninka naagtiisa uu u maseero oo xumaha in ajabe raacdo, in ma garanaysa ay la fariisato, inay la qosasho, inay meel la marmarto, inkastoo ninka ragga inuu ka damqado diinteena nafariso, haddana macnaheedu ma ahan in maartay aad ku been abuurato qofka bani aadamka. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka dhowray wax adiga aad ku tilmaamayso. aayad quraan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay suuratu al-Hujuraat aayadda 12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آيات وحي كهذا ليس إن وصن قفك لا بني آدم ومسلم وصن كبين أبورا وحوصن هنا وكشيء سيدا لا تجد هدية هاي قفك على مرة له xaaskiisa 24 saac ka shakiyo, ee labadii qof ee sheekaysanaysa ka shakiyo, ee maaragtay hadii jeer u arka in asaga un cadow lagu yahay, in ma garanaysaa labadiis wada socoto asaga u heshiiyeen, labadii wada hadlayso in asaga haystaan. hadii aad tahay ninka calaamadaha ay ku qufran yihiin, waxaan rajaynayaa hadii aad maaragtay clipkan uu soo gaaro daawato inaad sifooyinka ayaga aad ka digtoonaato sidii aad iskaga baabi'in lahayd, aad ku dadaasho. waxaan rajaynayaa niman saaxiibanahay ee asla garanayno nin calaamadaha asaga u khaas ah ee 24 saac ka shakisan in maaragtay asagu un maaragtay umada kale ay ku maqan tahay, labadooda socoto wada sheekaysanayso. saaxiibka halkaan aan ka salaamaya clipkan hadaad aragto waxaan rajaynayaa inaad qosli doonto. maanta waxaan galaynaa saddexda xigta oo isku bahad ahaa oo ayaguna ah xalay. maanta mawduuca aan ku guda jirno ama doqonta aragno maanta inaan falaqeyno saddexdii xaaladii haydkii ugu horeeyay. waxaan rajaynayaa insha Allah biidnaahi tabaaraka wa tacaala inaad si fiican aad dhagaha ugu furi doontaan oo u dhageysan doontaan. ninka aan maanta falaqeyn doono ee ka mid ah saddexda xaalayda ah waxa lagu magacaabaa xiluhu uureeyay xogmode. waan filayaa in badan inaad isla fahmi doontaan ama aan isla qaabaan dhigi doono fikradaha aan idin soo bandhigi doono insha Allah, iyo kuwa idinkan ka dhex guuxayaan inay iswaafaqi doonaan. waan rajaynayaa ninka lagu magacaabay xiluhu uureeyay xogmode xaqiiqatan waa ninka ay ku saabsan tahay dhammaan 10kan doqon ee aan soo koobay, qayb ka midana aan soo falanqeeyay. waa ninka ugu butoori weyn oo ma garanaysaa ugu liito ama ugu doqonsan 10ka doqon ee aan soo cayinay. haddaba waa maxay sababta? maadaama aan ku guda jirnay barnaamijkii la magac baxay badbaadada qoyska, waxaan soo sharaxnay oo muuqaalo hore aan ku soo sharaxnay oo ka heli kartaan barta YouTube-ka Xogsida Official ee aabaha iyo maaragtay doorka uu ku leeyahay qoyska iyo waxyaabaha looga baahan yahay oo ay koob ka tahay inuu u naxariisto ehelkiisa. markaan ku leeyahay waxaan kala jeedaa xaaskiisa oo si ballaaran inuu ugu naxariisto ay waajib ku tahay, sidoo kale ilmihiisana aysan ka marnaanin naxariista ayada ah. maadaama aan isla soo qaabaan dhignay aabaha doorka looga baahan yahay ee naxariista ku aadan ee xilihiisa ay kaga baahan tahay, haddaba markay yeelato uurka waxa la yiraahdo amaba ay xanuunsan tahay ama ay maarta arrimo kale ay ku soo food yeesheen, waxa waajib ku ah ninka ragga ah ee aabaha qoyska ah in uu naxariista uu reerkaas maarta uu hayay uu si laba jibaaro. waxaan rajaynayaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala mawduucan inay dhageysan doonaan qaybo badan oo ka mid ah ninka aan magacan ku soo sifeynay oo ah xiluhu uureeyay xogmode. waayo islaantaadu markay walaca tahay waxay kaaga baahan tahay daryeel gaar ah, naxariis saa'id ah,
marka ay cuslaato oo culayskeeda uu soo siyaado oo xilliga walca ay ka bahdana tabaryari iyo awood yari baa kusoo kordhayso. saas darteed marka waxaa lagaaga baahan yahay wax kasta oo culays ku ah ee ka mid ah hawsha guriga ka jirto inaad adigu la qaabaadhigto ee aad ka kaalmayso wixii aad u aragta inay ku culus yihiin si gaar ana aad ka fariisiso adigu aad qabato. haddaba maxaa ka liito nin xaaskiisa ay xanuunsan tahay ee aan naxariis aan u muujin ee ay culus tahay ee 9 bilood ama 8 bilood ama 7 bilood ay joogto ee kaga fadhiyo wax walba oo guriga laga qaban lahaa inay ayada u soo qabato. wallaahi thumma wallaahi inaysan jirin doqonnimo ka weyn ee nin rag ah lagu magacaabo ama lagu tilmaamo inaysan jirin ayaan dareemayaa. ninkaasna waxaan siinaynaa doqonnimo darajada ugu sarreysa ee laga qaato. haddaba waa maxay ujeedka ama hadafka aan ka leenahay inaan soo sharaxno ninka la magac baxay xiluhu uureeyey xoogmoode? ujeedka koowaad ee aan ka leenahay waxaa weeyaan ninka ragga ah inuusan ku tiigsan xaaskiisa xilliga ay culus tahay ama ay kaga baahan tahay naxariista gacansaarka ah. waxaan rajaynayaa inaan isla fahmi doono amaba aan isla fahanay in naxariista ay tahay waxa koowaad ee ninka ragga ah looga baahan yahay ee reerkiisa uu ku dhaqo. sidaa la ajigeed biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waan rajaynayaa in maaragtay haddii aad sifooyinkaas aad ku sugnayd maanta laga bilaabo aad adigu maaragtay dib isku xisaabin lahayd ee aad ogaan lahayd inaad tahay doqonta la yiraahdo xiluhu uureeyey xoogmoode. saad uga waantoobaysana waxa weeyaan adiga oo wax kasta oo aad horay u ahaan jirtay faraha ka taagto. yacni faraha ka taagta markaan ku leeyahay ujeedkeedu waxa weeyaan in aad ka tanaasusho wax walba aad ku sugnaan jirtay ee aad noqoto qof qalbi jilicsan naxariis badan xaaskiisa xaalad walba ay ku sugan tahay wajaho inuu maaragtay ka caawiyo ama uu ku garab istaago. inaan isla fahanay baan rajaynaya intaas biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. saddexda xaliida ayuu ka mid yahay xididkiis xanta ayaa la yidhahdaa. sida haddaba maaragtay magacaad ka dareemi kartaan xidid waxaa la yidhahdaa dadka maaragtay ehelka gabadha sida aabeed hooyadeed walaalkeed iyo walaasheed iyo intii la halmaalo. ninka ragga marka waxaa ka mamnuuca oo dhaqanka soomaalida iyo diinta iyo dhan walbaba aan ku wanaagsanin inuu ka sheekeeyo reer xididkiis xumaantooda iyo maaragtay wixii maaragtay xataa ka tirsanaya inuusan meelaha uusan maaragtay ku soo bandhigin. waa wax aad iyo aad maaragtay ninka ragga inuu uga gaashaanta ee aad iyo aad u wanaagsan tahay. mana ahan wax ka mid ah dhaqamada soomaalida in laga sheekeeyo xididka. haddaba marka ninka ku sheego meelaha macshirka ee dadku iskugu yimaadaan ee goobaha lagu shaaho asxaabtii iskugu yimaadaan cuqaashi iyo dad walbo badan ay iskugu yimaadaan ninka inta soo dhex istaaga ama soo dhex fadhiisto kaga sheekeynaya reer xididkii haddaba waxaa weeyaan waa mid ka mid ah 10ka doqon ee aan soo xusnay. haddaba waxaan rajaynayaa haddii aad maaragtay ka mid tahay noocyadaas oo xididka ka sheekayso inaadan maaragtay wixii hadda ka dambeeya kilibka hadduu kusoo gaaro inaad ka waantowdo oo aad ogaato inaad ka mid tahay doqomadaas. haddaba si aad ku wantoobayso waxa weeyaan adigoo dib isku xisaabiyo ee joojiyo wixii hore waad ka sheekayn jirtay. haddii aad ka sheekayn jirtay xumaanta iyo maaragtay faafinta ma garanaysaa reer xididka inaad mar walba aad ku fogan tahay haddii aad ku dhex jirtay wixii hadda ka dambeeya insha allah waxaa loo baahan yahay haddii uu kilibkan kusoo gaaro inaad bal xoogaa isyar xisaabiso dib aad isku fiiriso arrimaha ayagahana aad ka waantoodo gebi ahaanba. sidaan wada ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu xarimay oo uu naga xarimayba in maaragtay qof bani aadama aan wax ka sheegno gaar ahaan ehelka olamaba sii jirtaba. watan aayad qur-aan ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay suuratu alxujuraat aayadda 12 ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta. warkeebaa jecel inuu cuno hilibka walaalkiis weliba isagoo meyd ah. marka si kastaba inaad maaragtay qof bani aadam ah xamato wax ku wanaagsan ma ahan diin ahaan iyo maaragtay dhaqan ahaan intuba. marka insha allah biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynayaa inaan noqono kuwa xifdiyo ilaaliyo ehelkooda iyo magaranaysaa iyo intii la hashmaalasho iyo gaar ahaan reer xididkana kuwa maaragtay aan qaybtooda aan ka sheekeyn inaan noqonayo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala aan ilaahay ka rajaynayna. insha allah caawana maaragtay mawduuceen halkan iyo noogu ekaan doonaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay soo booqa janalkeena Xogsida Official. haddii aad naga daawanayso Facebooka linkiga YouTube-ka waxaan kuu soo dhigi doonaa qaybta kore ee title-ka maaragtay video-gu uu ku xusan yahay. haddii aad naga daawanayso YouTube-kana insha allah waxaan rajaynayaa inaad nagu soo biiri doonto oo maaragtay subscribe aad dhigi doonto video-ga haddii uu ku qancina like saari doonto. wixii kale oo maaragtay fikrado adigu aad haysan inaad noogu soo gudbin doonto insha allah biidnillaahi tabaaraka wa tacaala commentiga wixii annaga aan ku qaldanahayna sidoo kale fariintooda waxaad noogu reebi kartaa commentiga. waan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.